بسم الله السلام عليكم. marka la kusoo dhawaado cashirkeena ee koorsada HTML ee la xiriirta barashada sida loo dhiso website-yada. Waxaan maanta taariikhdu waa 10 bisha 2 2020. insha Allah taala maanta qodobka aan ku qaadan doono wuxuu noqon doonaa qodobkan HTML CSS. qodobkaas ayuu noqon doonaa waa qodob muhiimadiisa gaarka ah iska leh. اوكي قيمت كورسان هذينا. اوكي CSS وطبعا كورسو جوني هواي نفتر كذا او رجين دون ان شاء الله كورسada ku xigta waaybe HTML markuu qofka barto u dhameeyo koorsada kale ku xijiyo barto waa sidaan isugu xigaan kor hadda kanaad ku mashquulsan HTML waxa ku xigta CSS JavaScript so waxyaabo kale inta ku sii jiro marka saas ahaan laga sii wadaa marka kule page-kaas ka sii raaci kartaa laakiin hadda waxaan u qaadanaynaa CSS-ka maadaama cashirka way soo dhaxgalaysaa marka xogaa aragti guud iyo base-ka hoose qayb un baan ka qaadanaynaa so wax baad ka sii ogaanaysaa. CSS stands for Cascading Style Sheets. waxay u taagan tahay saddex xaraf oo maaragtay waa qaabeynta pages-ka warqada xanaadi waxaan furan oo laga shaqeynayo cascading waxa la dhahaa eray ahaan wax oo sida biyaha amal meel kor ka soo hoobanayo ayaa la dhahaa waterfall-ka waxa kor ka imaana soo hoobanayo marka waa wax aad gadaal loogu darayo waay wixii marka base-ka aad sameeysid waa wax lagu qurxinaa guriga marka la dhiso la ranjiyeen iyo decoration iyo nalgelin iyo qurxintiis wax gadaal ka yimaado waay so saas ayaa loo jeedaa marka CSS saves a lot of work shaqooyin badan ayay maaragtay save gareysaa keedisaa it can control the layout of multiple web pages at all at once sidoo kale maaragtay waxay controli kartaa ay hagi kartaa muuqaalo website-yo badan web page-yo badan ayaa hal mar ay lagu controli karaa yani wax badan hal mar lagu qaban karaa dhowr web page hal mar looga shaqeyn karaa ayada teknolojiyadan la isticmaalayo. CSS si kooban waxa waa styles and colors way qaabaysaa wayna midabaysaa yani qaabka design-ka wixii way habeynaysaa midabkan sidoo kale inta lagu bedelaa. So what is CSS marka maxay tahay CSS? Cascading Style Sheets is used to format the layout of a web page. waxa loo adeegsadaa in lagu qaabeeyo muuqaalka web page-ka habka web page-ka u muuqdo ayaa lagu qaabeeyaa. With CSS iyadoo la isticmaalayo CSS you can control the color midabka waad controli kartaa font nooca farta la isticmaalayo size-ka farta cabirkeeda space-yada u dhaxeeyo elements-yada sida ay maaragtay elementayada loo position gareynayo meel loo dhigayo qaybta laga dhigaa website-ka sida loo habeenayo and layout iyo wax sida u muuqanayaanba. So background-iga sawirada background-iga iyo background color-rada sidoo kale ayagan waa loo adeegsadaa so different displays yani muujiyaal kala duwan for different devices kala duwan ayagana maaragtay waa loo adeegsadaa iyo screen size iyo cabirka shaashada iyo waxyaabo kale yani waxa laga wadaa hadda markaan shaashadan hadda fiiri different displays waxa laga wadaa hadda laptop-ka la isticmaalayaa qof wuxuu isticmaali karaa tablet oo ka sii yar laptop-ka qof kale wuxuu isticmaali karaa maaragtay wuxuu isticmaali karaa mobile qof kale desktop isticmaali karaa qof kale TV ku xiriirin karaa so marka different displays why for different devices marka devices kala duwan waa yani ka yimaadaan so ilan markaad laptop isticmaalaysid ama mic ama mobile isticmaalaysid ama desktop computer isticmaalaysid ama TV aad ku connect gareysid mobile-kaaga ama laptop-kaaga wixii la mid ah so waxaasna marka waa different size devices different displays way yihiin so maxaa kaloo ka sida screen size-kana sii bedelaa mar kastaba
ayadoo marka waxaas dhan ay jiraan marka waxa lagu qaabeynayo oo wax kastaba sida ku haboon ku jaangoonayo ayay tahay marka loo adeegsadaa tan so page-ku ku furmaa sida ugu haboon ayuu ku furmaa laga wadaa in short haddaan si kooban u dhaho so tip talo kooban the word cascading means that style applied to a parent element will also apply to all children elements with the parent waxaa loola jeedaa yani cascading markii oo style yani lagu fuliyo oo yani lagu dhex sameeyo parenty wuxuu saameynaa asigana oo wax ka bedelaa children element kuwa la yiraahdo marka maxaa laga wadaa marka children element iyo parent element tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay meeshan okay waxaan tagaynaa editorkeena hadda meeshan kale aan fiirino headkan element intuu open tag waa intana close tag waa so wixii dhaxdiisa ku jiro waxaa la yiraahdaa waa children keeno qaada title ku dhex jiro title tag ku dhex jiro kan kaleento waa waxaan hadda aan meel kula xiriiriyo waa ka furo kaas waa muhiim ah inkastoo casharka hadda aan ku imaan doono oo noqonayo so haddii aan hoos u soo degno asin sidoo kale fiiri waxaan fiirinaynaa body tag ma uu noogu ku jiro so marka body wax kasta aad wixii ku dhex jiro kan lagu dhex jiro waa waalidka kan wax ku dhex jiro waxaa la yiraahdaa Allahumma salli ala Muhammad caruurtii la yiraahdaa okay bal hadda body meeshan aan ugu suubiyo okay body tag okay body tag open kiis waa kana mala hadda markaan wax tirtiraan umaleynaa close taggiisna waa kana marka maxaa ku dhex jiro laba element hadda ku dhex jiro mid waa comment waa kaas commentiga ma aragtay shaashada kama soo muuqanaya isaga markastaba waan soo qaadanaa cashirkaas commentiga labadan element hadda meeshan ku jiraan h1 iyo b oo paragraph ah header 1 iyo paragraph labadan waxay child u yihiin body ayay ku dhex jiraan so marka muhiimadda intaas waa marka inaan isla fahmo hadda haddii si kale la dhaho fiiriya haddii la dhaho tusaale headka fiiriya inta kor headka kaasoo ku iga kana hal child uu leeyahay kalanka laba ku sii jirto so marka mid kamid haddii oo mid kale la sii dhex suubiyo waxay noqonayaan awoow camal hadda tusaale body naftirkiis muxuu ku dhex jiraa html tusaale html kan waa close taggiisa waa hadda kan hoose kan arkon waa close taggi wax dhan wixii isku hayo waaye marka kor dheer aad tagtidna waa kan so body marka wuxuu ku dhex jiraa html oo ku dhex jiraa so html markuu ku sii dhex jiro wuxuu noqon karaa aan ku imaanaa cunugii ama wixii maaragtay body wixii ku sii dhex jirana waa caruurtiisii dhaleen camal marka shay kasta aad shaygu ku dhex jiro kan sareeya ayaa waalid ah kan hoos ku sii jiro waalid loo sii yahay marka nuxurkiisa intaas waa so marka kan kor haddii isbedel ku yimaado waalidka haddii isbedel wiilkan waa isbedelaa okay so if you set a color of the body text haddii aad body textiga aad colorkiisa aad ka dhigtid blue all headings paragraphs and other text element within the body will also get the same color meeshan waxaa lagu yiri haddii aad midabka oo badiga text wax ka bedeshid marka waxaa wax ka bedeshay badiga textkiisa waxaa ka dhigtay blue marka headingka ku jiro paragraphka iyo wax kasta elementyada kale oo ku dhex jira hadda laba element anaga xaq noogu jirtay kuwa kale ku sii jiraan xataa wuxuu dhan waxay helayaan the same color ay helayaan oo kaasa meeshaas ku wada bedelmeen maadaama waalidkii ay ku dhex jireen oo body ah la bedelay wixii kutladaas ama isku xirkaas jumladaas hoos imaanaya oo isbedelayaan unless you specify something else ilaa adiga aad ka gooni yeeshid waxyaabo kale aad si gooni ah u samaysid maahane yani maxaa laga wadaa si gooni ah aan taga inta
okay body markaan style inta aan bedelo oo aan dhaho wax ka bedelo so wixii oo body hoos imaana dhan way wada bedelmayaan ayadoo saas haddii aan marka mid ka sii mid ah aan si gooni ah u sii bedelo so marka sharcigii waa marka sharci kalanto oo xeer kala gooni ah marka ka dhaqan galay meeshaas saasaa loola jeedaa marka adiga wixii aad gooni u suubisid aad ka saartid way ka saarmayaan laakiin si guud waa way saameynayaan okay isticmaalka CSS waxaa marka si loogu daro HTML saddex qaab la isticmaalaa waxaa la yiraahdaa qaabka koowaad inline internal iyo external la kala dhahaa saddexdaas qaab waa inline marka waxaa by using the style attribute inside HTML element inline marka waxaa la isticmaalaa style attribute-ka iyadoo la dhexgelinayo HTML element dhexdiisa qodobkan hore waan soo qaadanay waxaan casharadan ku dhex jirkooda waxa ku faa'iiday hadda waan soo qaadanay inline gaar ahaan waan soo qaadanay laakiin markaan tusaalihiisan garnaad ogaan doontaan casharada hore ku jiray marka wax walba way soo noqonayaan laakiin waxbaa lagu dardaraa iyo qaabab kale ku imaanayaan oo aan qaabkii hore ahayn kaliya laakiin waxaan markaad ku dhex jirtid waad sii fahmaysaa faa'iidadaas ay leedahay so internal idan marka waxaa la yiraahdaa hadda fiirkan inside HTML element loo isticmaalaa kan ku xigo marka oo internalka waa in la isticmaalo style element la isticmaala asigana laakiin inta lagu isticmaalaa in the head section qaybta head section ka lagu isticmaalaa maxaa laga wadaa hore idinka tusina xataa dhib malahan head elementiga kan ka hor la gelina kan oo HTML element la gelina kan koowaad inline-ka marka waxa waaye tusaale ahaan hadda waaba kana noo ah inline sababtoo waa u jeednaa element waxa la isku dhahaa open tag iyo close tag wixii u dhaxeeyay iyo inta u dhaxayso dhan open tag content iyo close tag wixii intaas oo dhan hadda aan highlight ka saaray waa HTML element so dhaxdiisa marka waa kana open tag la geliyo lagu dhex suubiyo so this is inline waa marka si waa kana style markuu sino waa inline kan kalenta oo internalka ah head sectional la isticmaalaa marka head section maxaa waa headkaas open iyo close tag dhaxdooda la gelinaa marka int waana arki doonaa asiga insha Allah okay head section lagu isticmaalo meesha idin tusinayo waa external waa iyadan in la isticmaalo link element la isticmaalaa si uu u xiriiriyo to an external CSS file yani CSS file oo ka baxsan marka hadda kan dhan waa laga dhex baxaa page kan waxaan hadda aan ku jirno dhan file kan hadda index.html la dhaho waa laga dhex baxaa file kale gooni ahaan sameeynayna meeshaas kore oo banaanka ayaa inta laga hagaa marka laga bedelaa waana arki doonaa iyadan waan sameeynayna haddii aan leedmo okay the most common way to add CSS habka ugu maaragtay badan CSS wax loogu daro waxay tahay in is to keep the styles in external CSS files yani kan externalka loo isticmaal badaya marka kan kale ala adeegsadaa habka ugu badan oo la isticmaalo kaas waa kan externalka si ugu howl fudud oo hal mar wax badan qaban wax badan bedelaay okay however marka si kastaba in this tutorial we will use inline and internal style soo yiri ay dhaheen qolada page-ka waxay isticmaali doonaan labada qodob ee kore inline iyo internal sababtoo ah asiga fudud in dadka la tusiyo siina fudud adigna ku fudud inaad isku daydid nafsad ahaantaada marka saddexdooda marka kan kore hadda laga bilaabo marka saddexdooda inline-ka hadda marka bilaabo marka waa kana mid qodob loo soo qaadanaa looga hadlaa so inline CSS waxaa loo adeegsadaa in maaragtay unique style oo la dhexgelinayo HTML element marka waa tana marka yani waan aragnay laakiin haddana idin sii tusinayo yani kano hawa kana HTML elementiga la dhexgelinaa waxaan aqoonta iyada unbaa soo noqonayso ee qaabab kala duwan unbay ku imaanaysaa iyadoo wax lagu sii daro leh waxa idin dhahay taas leh hadalka inta hadda idin dhahay so waxa marka loo adeegsadaa lagu dhaqan geliyo loo adeegsado unique style to a single
HTML element يعني style unique ah oo gooni ah markaas shay midka aad gooniga isticmaalaysid sidoo kale inline-ka wuxuu isticmaalaa style attribute of HTML element ayuu isticmaalaa يعني style attribute okay la isticmaalaa waan aragna hadda style-ka ku dhex jirto markano fiir kan hadda style-ka ku jiro kadib color-kii oo aan rabnay inaan qoraalka fartaas ka bedelno kan hadda waa kana waxaan rabnay inaan background color-ka aan bedelno oo ayadana maxaan ka dhignay iyadana maxaa isticmaalay style attribute-kii so marka style attribute ayaa la isticmaalaa okay the following example sets the text color of the H1 element to blue and the next color of the P element to red so marka tusaalaha soo socda marka colorka H1 ka wuxuu ka dhigayaan blue kan ku xigana waxay ka dhigayaan guduud so way fududahay marka waa kana hadda hadii oo tusaale ahaan fiir halahan yar hadii aan ka qaadno tusaale kan ma fuqaa malena inta ka qaadma beejka wax ka bedeli karno okay example meesha waxaan aadaynaa tusaalayaasha ana internetka iyo joogan kalaaska internetka maqan waxaan ka fogahay waxaan ka soo fogahay wax yar meesha uu yaalo routerka waa internet access point-iga meesha uu yaalo ka soo fogahay marka waa qadku ka fogaana so waa kana marka hadda fiiri normally haddii aan wixii hadda aan subir rabo inta ku subiraa okay intaana hadda fujinaa fiiriya waan ka qaaday so normally waa kana marka sida caadiga ah uu yahay hadda waxa ismaadsan daan bulugas waa ka baxa caadi uu noqonaa normally iska madow waay standardkiisa default-iga so marka la rabo marka in marka maxaa la subinaa just open tag-ga waan soo qaadanay kan open tag-ga unbaa intaas lagu daraa style calaamad waxay la mid tahay quotation-ki so markasta waxaa la isticmaalaa property iyo value property-gu waa color value-guna waa hadda midabkan buluuga ah waay so intana marka lamid waxa waa kana waa lamid so style color red so wax kasta hadda fartarta midabka inta la ka bedelay hadda green aan leeyahay green okay meeshan guduudka hadda ahayd green ay noqonaysaa kan korna blue sababta wixii aan soo dhex galiyay intaas leeyahay marka okay aan u laabana asalkeena okay hore u soconayna markastaba waqtiga waxa uu nagu socdaa hawshan 10 ay badan yihiin internal marka qodobka dhexe aan soo galno an internal CS waxa loo isticmaalaa in lagu qeexo style ee qaabaynta loo isticmaalo single HTML page yani marka one single page marka hal bog kii hore fiiriya meelaha farqiga markasta la fiiriyo marka idin leeyahay waxba badan idin ifay hadda kii hore muxuu ahaa single HTML element yani one line la waay element HTML element maxaa one line waay open tag ila end tag iyo content-ga ku dhex jiray ayaa HTML element la isku dhahaa so marka kan inline-ka ah waxaad ku bedeli kartaa oo kaliya single HTML element ayaa ku bedeli kartaa maxaa loola jeedaa mar labaad inta idin ka tusiyo just kan waa ka saak inta soo bedela hadda fartan style-kan inta ku jiray waxaan waxay saameyn ku yeelanayaan bedelayaan farta inta ku jirta this is some normal text la dhahay intaas wixii ku jira ayuu kan bedelaa waa inline-ka waay inline-ki ku dhex jira fiir magaciisa ku tusaabe line-ki ku dhex jira so saameyntiis maxay ku kooban tahay in this line waa marka line-kan uu ku eegaya HTML element ayuu saameynaa ama wax ka bedelaa laakiin kan kale oo ku xiga muxuu ahaa internal-ka maxaa way single HTML page marka page-ka dhan waa marka laakiin oo hal page ah one page ah waa kan so kan kale inta aan sii gaarno external-ka daan gaarno marka waxa way kaas pages badan isku bedel meesha marka pages oo noqon doonaan waa arki doonaa asigana laakiin ina ila socodida rabaa ilaa hadda isku xirka markastaba 10ka ama tilaabo kasto la qaado waa
inaan focuska saarnaa maxay tilaabadii hore kaga duwan tahay. So meesha block يعني block la korsaaraya waa cilmiga. An internal CSS is defined in the head section. waxaa marka tan lagu qeexaa oo la geliyaa head sectionka waa inta hadda idin soo sheegaa leeyahay an HTML page of an HTML page within a style element idoo la isticmaalayo. So tusaale ku imaan doontaan waan arki doonaa. The following examples set the text color of all the H1 elements on that page to blue. tusaalaha soo socdo waxay qoraalka oo text colorka farta midabkeeda wuxuu ka wada dhigaa all the H1 wixii ku jiro element ah all that page kaas oo dhan wixii ku jiro waxay ka dhigaan blue and the text color of all the b wixii ku jiro sidoo kale xataa hadii dhowr H1 yihiin ama dhowr b paragraph yihiin waxa soo dhan waa bedelaan to red ayaa laga dhigaa. In addition marka inta waxa sii dheer the page will be displayed with a power blue midabka powder blue ayaa ku soo muuqan doona page kana okay as a background color u noqonaya. Okay waa kan horta marka hore head section ka la dhex geliyay head ka waa kana xagu ka bilaama close tagisna waa kana hadii aan special page aan u tagno oo gaar ah oo aan kan dhanka dhex baxano waa kana marka inta wada imaano. So source page waa kana iyo display page meesha oo code ku yaalo wax ka soo baxayeen waa kana wax ka soo burqanayeen wax laga sameeyay kana waa display page waa meesha browser wax ka soo muuqanayeen waa. Okay kan marka waa kana horto head section kan ka fiirina marka kii hadaatay inline oo ahaa dhaxdaas H1 ka dhaxdiisa la gelina ama paragraphka adii elementiga dhaxdiisa la gelina kan laakiin waa ka baxsan yahay xoogaa xuduud kor u jira marka kan oo head section marka head open tag iyo head close tag waa kana dhaxdooda marka waxa laga dhex abuuray style ayaad furaysaa oo tag ah waana soo xiraysaa marka soo xirto ka bacdi ayaa waxa qoraysaa inta aad rabto in wax ka bedeshid maxaa la rabaa horta wax laga bedelo body. Okay body marka la rabo in wax laga bedelo hadii in la soo dhaweeyo loo sii baahan yahay aan soo dhaweeyo. Okay body marka la rabo in wax laga bedelo ayaa la isticmaalaa tag body elementigaas la isticmaalaa. Okay so H1 waa qoraysaa waxa laga rabo in laga sameeyo p paragraph u taagan waxa la rabo in laga sameeyo hadii aad mid ka saartid saameyn marka ma soo bilayso ma yaani ma qabanayso laakiin hadda kan oo kale body background color ka dhan waa kana uu saameey muxuu yahay blue oo bb ah noocan powder blue loo yaqaan. So marka adiga waxa laga rabaa marka inaad intaad aad isticmaashid editor kasta lagu qori karaa ina adiga suubisa laga rabaa marka inaad ana hadda maadaama 10 bixina waqti ugu socdo gacantiida waan ku qori karaa laakiin waqtiga nooga sii baxayo. So waana hadda koobiyan karaa xataa bastin xaqan oo ku dhigi karaa oo ku dejin karaa laakiin adiga ha koobiyeenin laakiin inaad qortid isku day code kasta gooniis inaad qortid waqti inaad dhaqaalayso lama rabo inaad wax baratida muhiim ah. waqtiga waxa loo bixiyaa wax kasta la bixinayo wax lagu bixinayo inay ka qiimo badan yihiin baa muhiim ah kadibna waqtiga kii baxwa mar kastaba. Okay okay saasoo ku dhabaada kaas hadda. Okay kii hadda soo tusaaleynay hadda waxaan soo gudbinaa qodobka ugu dambeeyay kii saddexaad external CSS. So an external CSS sheet is used to define the style for many HTML pages marka waa kana waxna waa isbedeshay ka markay. So nuxurka waxay tahay meesha wax iska bedela fiir kan marka waxa loo adeegsadaa in lagu qeexo qaabaynta for many HTML pages marka page badan oo HTML ah more pages oo marka ama many pages kii koowaad muxuu ahaa inline loo ahaa kii kale ku xiga muxuu ahaa one page ayuu ahaa kan maxaa waa marka more pages ama many pages oo marka wax badan hal mar ku qaban kartaa kan.
waa kana marka kii hadda muxuu ahaa single html page oo kan kii ka horeen muxuu ahaa one line loo ahaa asigana ma badneen waa kana inside html element waliba line hal line waa elementiga one element oo ahaa kan internal kana maxaa waa asigana single html page hal page hal bog wax ka qabanay kan laakiin oo banaanka laga soo tooganayo ama banaanka laga soo saxayo ama wax laga qabanayo wuxuu qaban karaa wax badan marka many html pages marka page yal badan markasta waxa waaye shayga uu soo noqonaa laakiin qaabku ku imaanayo ayaa ka duwan qaabkii hore iyo plus in wax ku dirsan yihiin tibkaas ama si fiican erga haliga qabto okay waxa loo isticmaala marka si loo isticmaalo external style ku dar linkiga head section ayaa link ka sameynaysa of each html page marka html page kastaba hadii page ay badi anaga tusaale ahaan hal page waa waxa inta noogu yaalo oo noo furan tusaale hadii marka page badan aad rabtid inaad wax badan aad wax ka bedeshid so kulli marka waa mid kasta wax gelinaysa headka link oo aad ku xiriirinaysa sida loogu xiriirina haddaan sameynaa idan afwan sida loogu xiriirina haddaan sameynayna waxa abaan ku saxay okay sida loogu xiriirina haddaan sameynayna okay tusaalaha waa kana tusaalaha marka waxaan sameynaynaa page weyn aan la aadeyna page weyn aan la aadeyna sida caadada okay hadda meesha marka maxaan arkoonaa horta still waxaa la joogaa head section ka la joogaa oo waa kana inta ka bilaama open tag close tag waa kana so dhaxdiis marka maxaa lagu suubiyaa linkigan marka u fiirsa marka waan copy kareena okay waxaan suubinaynaa anaga hadda kan uu isku xiriirsan yahay waxaan sameynaynaa waa abuureena marka sida loo sameynayo waxaad tagaysaa editorkaaga waxaad aadaysaa meeshaas fileka waxaad aadaysaa waxaad leedahay new mid cusub aad furaysaa okay mid cusub markaad furtid waxaad suubinaysaa intaadan waxba ku qorin waa save garaynaysaa halkaasaad aadaysaa isla meeshii haddana filekaad ku laabanee save as aad leedahay waxaad ku dhex samaynaysaa isla folderkii oo kii kugu xaraysnaa another folder ki ii furnaa waa kana marka this bc desktop html course 1 folderkaasi ugu jiraa so marka hadda maxaan suubinaa stylis aan leeyahay stylis.css xasuusna waa inuu .css extensionkaas file extensions Allah meeshas marka waxyaabaha fileka noociisu waxa uu yahay ayay qeexaysaa so waxyaabaha lagu helo waa la isku raadinayo so haduu ka khaldamo waxa waaye active ku noqonaya ma helays ugu adkaana so marka waxa la rabaa inay wax isleeyihiin so marka extension ka saagelinsa css waa nooc aan sameynayno so marka meeshan hoose okay normal waxa uu yahay marka ku xiran tahay hadda tusaale waxa dhigi kartaa direct kan u koreeyo oo all types waa ka dhigi kartaa laakiin maadaama css uu yahay waxaan raadinaynaa file uu ku jira marka meeshan css c waa kana marka Marcusino kan cascade style sheets sigana waan ka dhigay save aan leeyahay marka hadda markaan save gareeyo so meeshii oo page-kayga uu tag marka waa kana meeshii uu ku jira marka waa kana kan saddex file hadda igu jirto kii oo hadda aan isticmaalino indexka html-ka ahaa mid sawirka libaxa ahaa iyo style.css hadda aan sameeyay so hadda kan marka waa ii sameysay marka maxaa laga rabaa marka inaan isku xiriiriyo marka in aan isku xiriiriyo sidaan isku xiriirina marka waxaan tagaa indexka imaana so marka meesha tago intaan imaana marka waan soo head section ka ku dhex suubinaya lagu yiri maheno so marka waa kana dadkiyaan copy soo dhahay sila maaragtay wax tixraaci ah so magaci maxaa u bixi styles.css loo ahaa so style sheet waxa rabtid qoro style okay so marka waxaan suubinaa control s aan leeyahay save gareena kan marka aan save gareeyo waxaan rabaa marka inuu uu saameeyo page-ka kaleento so marka hadda save gareeyo maxaan suubinaa marka waxaa kaloon suubinaa page-kan u laabto marka okay وفرس ماشا marka the external style sheet can be written in any text editor kasta oo lagu qori karaa a file must not contain
any HTML code marka fileka oo aad suubis oo cusub lama rabo inuu ka koobnaado HTML code lama rabo inuu ku jiro waa kan waa fileka cusub hadda aan sameeyay waa empty waa everywhere faaruq waa leekh aydan howla desk waa everywhere hadda waxba kuma jiro so dabcan wax waa la gelin doonaa laakiin waxaas la gelin waa inaysan noqonin must not contain any HTML code waa inaysan noqonin marka taa waa in isla ogaano sidoo kalena must be saved with a .css extension waa inta hadda aadin sheegayo marka .css extension waxaa la dhahaa waxyaabaha oo gadaal ka raacsiisan faylash marka wixii ka dambeeya extensions .html .css waxay la mid ah markaas adii sawirada nooca muuqaalada waxa ay yihiin oo kala duwan tahay so kan marka hadda aan ka hadlayno marka waxa la rabaa in uu dambeeyo .css waana sameynay so with this here is what the stylus.css file looks like qaabku ku soo baxay ama iga waa kana marka qaabkan waa inuu noqdo hal rabaa stylus. Okay hadda maxaan suubinaynaa halahan koob baan leena bedelka aan hal aan u qori lahaa aan ahaan maadaama waqti aan wax duubayo oo waqti badan ugu socdo waxa ii fudud marka koob aan leeyahay iyo paste marka adii laakiin waxa laga rabaa inaad ficil practical u sameysid okay hoos aan soo dejinaa wax yar si meel dhexe aan kala loo arko okay waan ku soo dhex dejiyay maxaa la suubi marka haddaan qori lahayn oo fududahay iyadan wax weyn maahan body aad suubinaysaa qoree kadib calaamadan aad sameynaysaa tusaale ahaan calaamadaas markaad suubisid kana hal mar aan ka saaraa fiirwaadan tusinaa kaas calaamadan okay saxta waan takhtiraa fiire okay waxaad sameynaysaa calaamadan kadib waa soo degaysaa mid kale hoos keenaysaa markaad suubis dhaxda ay waxaad ku qoraysaa aan hadda wixii marka waan ka jaray waa kaas aan ku soo ceshtay okay so marka calaamadaas aad furtay waadna xirtay dhaxda marka waxaad gelisay intii la rabay so marka waxaan leenahay safe waan safe gareynaynaa so waxaan rajaynaynaa marka hadda waxaan rabnaa waxaan aadaynaa page-kii kan okay in that refresh suubi yani saan loo noqonaa good yani markii horaan ku sameeyay so waa kana marka almuhim waa haddaan wax ka bedelo fiir waa idin tusina haddaan wax ka bedelo meesha hadda fartan inta buluuga biyaha ay tahay aan waxaan ka dhigaa yellow aan ka dhigaa waa kana waxaan ka controlaya laakiin aan ka maamulaya ogaada waa outside from the outside external ka isticmaalaya meesha hadda yellow aan leeyahay yellow control s aan leeyahay waa save gareynaa so waxaan joogaa hadda filekii la dhahayay okay filekii wayarta marka stylus.css aan ku jiraa fileka kii kale ma ku jiraa kii kale waa kana kanaan ku dhex jiraa so hadda intaan ka maamulaya marka control s waan dhahay yellow aan rabaa inay noqoto marka barxadan waa inay midabkeeda jaale ay noqotaa waa kaas waa inoo qabsoonta marka sino yani page-kan waxaan ka maamulayaa banaankan ka maamulayaa waxaan isticmaalayaa external css ayaan isticmaalayaa so fartoo kale hadda tusaale ahaan tan waa guduud waxaan rabaa inaan ka dhigo tusaale ahaan cadaan meesha guduudka ah unba waxaan ku qoraa white redka yani waa paragraphka b-ga ah wayno so marka colorkiisa waxaan ka dhigaa white okay control s soo deji so marka inay cadaan noqotaan rabaa fartaas guduuda ah intaas inay cadaan noqotaan rabaa control waxaan leeyahay refresh waa kaas way noo qabsoontay ayadana so inta unbaad ka maamulaysaa marka background-igi waxda asagoo kusoo saaciday wax kastood ka sameynaysid so marka hal page kali maahane pages badan xataa waad control kartaa laakiin shardi maxaa ah marka page kasta waa inaad linkigan dhex gelisaa linkigan oo aad ku xiriirisaa linkiga waa inuu ku magac ahaadaa kan la rabo haddii uu magaca waxa ka CSS wax ka khaldan yihiin adan maaragtay si fiican isugu xiriirsaneen dabcan qalad dhacay okay waxaan aadaynaa hadda page-keena weynaa cashirkeena sii wadaneynaa
okay tip lagu leeyahay talo kooban within an external style sheet you can change the look of an entire website waxaad ku bedeli kartaa adoo ka isticmaalaya external style sheet ka hadda yani website ko dhan aad ku bedeli kartaa sida by changing one file hal file adoo bedesho website ko dhan bedelma so waa hawl fudud waay shayga moogtahay mar kasta oo banaanka markuu yahay wax laga soo hagaayo marka gudaha ay tahay way ka fududahay qiyaas bal dagaalka marka lagu jiro kal diyaaradda miig hawada sare marayso waxay geysan kartaa waxyaalo ka badan kuwa dhulka waxay geysan karaan so marka banaanka wax badan waa laga qaban karaa ula jeedaa so CSS color fonts and sizes marka CSS ka midabada farta nooca farta iyo cabirada so here we will demonstrate some commonly used CSS properties يعني CSS properties waxa la dhahaa waan idin sheegay waa waxyaabahan waa kuwan okay marka waxaan tusinayna yiri dhaheen yani CSS properties oo si joogto ah loo isticmaalo commonly used you will learn more about them later in badan dib aad ka baran doontaan so marka the CSS color property waxa loo isticmaalaa text color to be used farta lagu kalareeyaa kan property-gan guduudka farta yani marka farta la kalareeynaa la isticmaalaa kanad waxa la isticmaalaa marka nooca farta la rabo in la bedelo font family la dhahaa kan waxa la isticmaalaa marka la rabo in farta cabirkeeda la bedelo ama la yareeyo ama la weyneeyo wixii la mid ah tusaale ahaan marka waa kana wuxuu ku leeyahay tusaalahan xataa hore soo qaadanay laakiin haddana maadaama ay qiso kale sheeko kale ku timid iyo chapter kale mawduuc kale ayadana dib celis hanoo noqoto okay waxyaraan naga fogeynaa okay meeshan waan aragnaa weli waxa waay kan internal ki waayay inline ma ahan wuxuu ku dhawaad ujeedaa marka head section ka la joogaa waxa laga dhex furay style marka la furay waxa la rabaa in la toogto wax laga bedelo meeshan qoladaana la rabaa labadan meeshan maxaa ka muuqdo this is heading iyo inta maxaa ka muuqdo this is a paragraph just waa laba sentence waay sabuurada aan soo dhaweeyay ahaan ay meeshan saddex line u noqoto laakiin normally kan waa hal line wax farta buluuga aad arkaysid waa h1 kan kalentana waa hal line kalenta waa haddii aan fogeeyaad arki karaysaan waa kaasa halkii un bay noqotay markaan soo dhaweeyay si uu wixii idin wada tusiyo ayay farta si kala durqaysaa okay maxaa hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno waa kana fiir colorka fiiri h1 kan si loo bedelo okay colorka maxaa la suubiyay maxaa la isticmaalay property la yiraahdo color waa kaasa property no maxaa markasta hadaad qiimo hanti hadaad maqashid maxaa la rabaa in qiimihiina ay ku xigto waxaan waa siyaas hadii la dhaho hantidan saan waaye guri gaari wuxuu rabaa aado waa in qiimihiina ku xiga qiimaha marka maxaa waaye midabka blue waay hada kan font family waa property la yiraahdo font family maxaa loo isticmaalaa nooca farta so ferdana waa marka farta nooca ferdana la dhahay so nooc kale intana waa jira waa kana courierka waa fartana ku qoran guduuda paragraph-ka so nooca farta xagga gelinaysa intana marka font size cabirka fartaas ay noqonaysa hada meeshan 300 waaye 30 hadaan ka dhigo aad u yaraanaysa fiiri meesha heading-kaas way yaraanaysa rana leeyahay so mar la arka ilma aragtay noqotay fiiri sa u yaraatay waa tan waay meesha soo aad u yaraatay so boqolkiiba meeqa wax badan aa dhuntay gadana xeer u celinaa marka okay 300 aan ku celinaa ibran ku daraa si meeshiisa saga laabto ranka refresh u dhigan tahay okay xeer naga sii fogeeyo kaas hadda waan aragnay waa h1 lagu bedelay kan hadda paragraph kana lagu sii bedelay asigana okay bida la qoro for paragraph waxa la furaa calaamadaas aad aragtid iyadoo xiranna waa tana dhaxdana marka waxa lagu qoraa property-yadii la rabay so marka color property waa property ay leedahay CSS value-geedana waxa loo isticmaalaa color-ka
oo farta ah waliba haddii background ay noqoto background color haddii noqotana waxay noqonaya pageka sagxadiisa dambo so marka hadda tan marka color kaligeeda tahay waa red waxa loo waa textiga waa farta so hadda fartan waa midabkeeda gaduud tan hadda meeshaas gaduudka aan green ka dhigo show waxay noqon doontaa green okay fartan yaro gaduud ah sheegaa waa kaas green ay noqotay so waa taas hadda green isku bedeshay intaas marka sidaas baad u bedelaysaa wax weyn maahan font family marka nooca farta ay tahay marka fartan oo meesha lagu isticmaalo nooca ay tahay waa courier waa noocan waa haddii aan rabo inaan tan kor u ekeysiiyo just inta la ka bedelaa nooca far aragtida meeshaas ku qoraysaa tusaale ahaan hadda fiiri farta kore aan la camalan ka dhigaa soo koobiyena okay on korsara pastan ku duleeyahay so kaas meesha ka baxa so marka fartan noocan waa islahaanaya marka hadda kala midab duwanaadaan laakiin isku faray noqdeen isku qaab isku family noqdeen font family okay intaasna inaad fahamteen rajayna waan ka sii soconaa marka shayga haddaad fahmi ku celcelinaysaa yani muhiim waxa ah inaan si waadix ah oo la fahmi karo aan u dhaho laakiin muuqaalka ku ceshan kartaa okay waxa kale oo jiro CS border in oo xuduud loo kala sameeyo qoraalada marka waxa la isticmaalaa marka property-gan border la yiraahdo CSS leedahay wuxuu qeexaa in border lagu sameeyo nawaaxiga HTML element okay tusaale tip waxa lagu yiri waxaad ku qeexi kartaa border for nearly all HTML elements yani ku dhawaad all HTML elements dhamaantood waa loo isticmaali karaa okay waa loo adeegsan karaa waa lagu sameyn karaa waa lagu qeexi karaa tusaale okay intaan tageena meeshaan tagna fiiri okay internetkii okay shaqay good waxa inoo muuqata hadda waxa inoo muuqato border 2 pixel solid powder okay paragraph area meesha marka qoraaladan ku jiraan meeqa waay marka hore inta focus ka saarayna fiir waa one header oo kan ah intaas waay waa h1 iyo saddex paragraph waay so si loo kala googooyo fartan hadda mid kasta wuxuu leeyahay waa ujeedaan wuxuu ku dhex jiraa box ku dhex jiraa yani border ay kala leeyihiin xuduud ay kala leeyihiin wareegay ku dhex jiraan so marka si taa loo sameeyo maxaa la adeegsaday marka sidaan la adeegsaday head section-ka la tagay sida normalka ahayd maadaama uu yahay internal CSS not inline not external inline ma ahan external ma ahan waa internal way so waxaana sharcigu u yahay in la yimaado head section-ka waana joognaa style laga dhex furay waa la sameeyay kadib maxaa la qoray okay kadib waxaa la qoray u fiirsaya paragraphyada kaliya ayaa la geliyay borderyada loo sameeyay head kama lahan so maxaa la sameeyay marka paragraph-ka la qoray kadib waxaa la sameeyay inta pixel oo la rabo inay noqdo dhumucda yani inta ay la ekaanayso adkaanteeda la suubiyay midabkoodana waa la sheegay inta lagu xusay okay halkaas qodob la qoray marka soo paragraphyada dhanna wuu saamay saddexdan haddii aan rabno in kan kor lagu daro maxaa la suubinaa isagale hoos baa soo degaysaa waxaa leedahay h1 maxaa suubinaysaa processka baa raacaysaa bis okay waan xireynaa dhexdooda marka ka qaraabanayna hoos aan soo degaynaa okay maxaa inta ku qoraysaa marka maxaa leedahay border waxaan rabaa inaan kan kore oo hadda highlight-ka ii saaran kan ayaan rabaa inaan box-ka geliyo so marka maxaan leenahay border okay labada dhibcood 2 pixel okay solid midab waxaan ka dhigaynaa red la iska dheh okay run aan leeyahay midabkiisna inuu gudu noqdaan rabaa akaasa waxa midabka aan ka hadlayo ma ahan farta waa wareegaas koro la arka wareegaas koro waay
kana hadda waa kuwan dhex geli so kuwan wuu ku dhex jiraa ee midabkooda biyo ah afterkooda red aan leeyahay ka dhig si loo arko red aan leeyahay midabka red kaad moodo xogaa inuu tiq yahay waa kaasa si loo arki karo okay so intaas wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo border xuduudo loogu kala sameeyo qoraalada aan ka sii socono marka cashirka waqti ahaan wuu dheeraan karaa laakiin muhiimadda waxaa wax fiican inaad waqtigaaga ku bixisid ku bedelatid waqti lama xisaabi markaad dan leedahay ama wax baranaysid okay css padding okay waa property kale cusub waa isigana okay css padding property waxaa lagu qeexaa padding macnaha space waa yani marnaasho oo u dhaxeeya textiga iyo borderka marka farta iyo xuduudii borderka aan arkayna meesha ay ku dhex jirtay ayaa lagu kala fogeynaa marka ama la iskugu soo dhaweynaa marka space ayaa loogu suubiyaa okay tusaalaha aan ku aragna marka aan tagna meeshaan markaan internet maxaa dhacaya aan aragno pagekan kale iska xiro okay iska xiro okay ii furma good kan kan hataa mid hore ah umaleynaa suga si hataa iska xiro okay suga haddaan dib u furta dhib malahan kan hataa iska xiro waxdhan iska wada xira dhib malahan okay haddaan furnaa marka waa kana waxaa meeshaan marka ka muuqato tusaale ahaan yani farti waa kana fiiriya farti oo tan ah iyo borderkii oo kan ah xuduudii ayaa lagu kala durjiyey marka inta isu jiraysa waay hadda waan yareynaa hadda 30 meesha uu ka yahay fiir waxaan ka dhigaa 10 aan ka dhigaa 3 meelood 2 meel aan tuuraa oo isku soo dhawaanayaan narkusino waa isku soo yaraadeen haddii aan hal aan ka dhiga dabcan hoosta iska sii galayaan waa kaasa markusino yani xuduudaha ay isu jiraan marka aan fiirin marka haddii aan okay 30 aan ka dhigno waa kaasa marka yani farti iyo wixii marka iyo boxka ay ku jirtay ama borderkii ayaa marna kala durqaya marna isku soo dhawaanayaan okay kaas waa borderkii okay margin marka noo saar marka cs margin gabagabaan taagannahay cs margin property defines margin space outside the border marka kan waxaa lagu qeexaa isagana uu shaqadiisa yahay banaanka marka xuduudda banaankeeda yani waxaa laga wadaa laba shay margin waxaa la yiraahdaa laba shay inta u dhaxayso space la waa macna kale malaha waa space maxaa waaye laba shay inta u dhaxaysa space la dhahaa masaafo banaan ama meel banaan okay aan aragna iyadana kan kii hore farta iyo waxay ahayd farta iyo xuduud meesha ku dhex jirtay kii hore laakiin kan waa kan iyo kan inta isu jiraan marka hadda tusaale meeshan qontanka ah waxaan ka dhigaa 10 aan ka dhigaa ran aan leeyahay waa arkaysin tusaale wax ku arkaysin hoosta iska soo galeen markusino haddii aan rabo marka inaan kala fogeeyo this paragraph borderada isku leeyahay xuduudda ay leeyihiin haddaan rabo inaan kala fogeeyo kan un baan weyneynaa marka hadda 60 oo kale aan ka dhigamo 70 fiirso u weynaad waa kala dhumeen xataa kuwa kale yani waa kaasaa fiir midabka guduud aan ka dhigaa midabka guduudka aad loo arkay ogyahay red okay guduudka la arkay ogyahay soo marka kuwana saasay kala noqdeen saasay u kala fogaadeen haddii aan rabo wax yar inaan isku soo dhaweeyo 40 oo kale aan dhaho waa kaasa intaan isku soo jirsadeen adi masaafada u dhaxeynayso laba shay ayaa in isku soo dhaweeyo ama in la kala dheereeyo ayaa loo isticmaalaa marginka paddingti oo ka horeysan aan soo qaadan waxaa loo isticmaalaa iyadana farta iyo meesha ay ku jirto intay isu jirayeen ahayd taas padding yani hadda padding hadda u bedelaada kan meesha fiiriya padding farta kala fogaanaysano
marka yani meesha ay ku jirto ikan kii aan soo dhaafnaan ka wadaa waa kaas Marcusino intaas waa okay aan ka socono marka link to external CSS so marka banaanka lagu xiriirsamaayo tii data aan soo sameeyno le waaye marka waa bogsiisan ku dul mareena external style sheet ka markii oo waxa lagu tixraaca oo tixraac marka la suubino wadada la maraayo waxa waaye laba qaab waaye marka full idoo la isticmaalayo with a full URL yani URL waxa la dhahaa waa idin sheegay meesha oo halkaas banaan oo browser ku waxa loogu qoro meeshaas kore wixii ku qoran oo dhan marka waxa waaye full URL ka ah so or ama waxa kale oo la isticmaalaa with a path relative to the current web page ama relative iyo maaragtay full URL waa soo wada qaadan hataa casharo kale hore aan ku soo qaadanay so laakiin maadaama ay soo noqonayaan wajiyo kala duwan ay ku imaanayaan ayaa hadda noogu timid okay marka relative ka isla current web page marka web page ka hadda lagu jiro marka anaga hadda marka web page keena hadda aan ku jirno aan isticmaaleynay oo anaga keena wax ku barbarin wax ku sameeynay asiga le marka aan ka dhaxso marka saas oo kale marka taa maxaa isticmaalena just relative un ba isticmaalena waa kana marka rel waxa waa short for relative ala soo gaabi so marka full address ma gelino meel kale ma aaduna hadda meel kale aadi lahayn full kan ka dhigi lahayn laakiin maadaama keena dhaxdiisa aan ka dhax sameeynay oo index mark meeshan aan ku dhex jirnay folder keeni waxaan page keena wax ku dhex soo binoono so that's why marka relative ka aan isticmaalnay okay example tusale this example uses full URL to the style sheet okay kan waa dhameystiran yahay oo tageena hor link gudbeena so marka page dhameystiran waa kan URL so saan la asigana loo qora link relative what's the rel sheet okay href waa kan marka soo dhameystiran marka ayaga hadda page koodana waayay dabcan laakiin hadda full keen ugu tusiyeen marka full address ki URL ka oo ay ka bilaabeen waa kana meesha markuno waxyo dhan ku dhex jiro so ilaa meesha ku yimid CSS ki okay intaas leewa meesha lagu qoraa adi laakiin suusuubi isku day waxa dhan ha ku ekaanan oo kaliya waan arkay waa ka gudbay okay example kaleento oo la xiriira mid isla HTML folder ku dhex yaalo oo ah current website kan hadda lagu jiro so kaasna marka waa kana asiga uu ka fudud yahay meeshan wixii taxnaa ay faraha badnaa ayaa ka maqan oo www https oo mark labada dhibcood iyo www. asaas website ka magaciisa kadib .com wixii meesha ka maqan yihiin looma baahno so asiga hadaan tusaalihiis iska aadno waqti ma la xisaabin hadii wax la baranayo eragaas meel iga qora inta waqti xisaabinaysa ciyaaraha waqti loo xisaabiyo wax ma la yaaniha okay waa kana marka asigana sidaan leeyahay just link relative / sheet magaciisa waaye style sheet ka href marka meesha uu kaga jiro reference waaye so waa kana marka magaciisa gelinaysa stylist.ss css okay laabano gabagaba markaan taaganahay example kan this example links to a style sheet located on the same folder as the current page okay hadda waay wixii dhaxda ku jira waay web current web page okay way dhamaatay cashirka laakiin waa chapter summary dulmar waay oo kooban wuxuu ku leeyahay marka meeshan you can read more about file paths in the chapter HTML file paths يعني 10 كلمات فايل باثs ال HTML ku saabsan oo lagu imaan doonta idana lagu arki doona hababka la maraa wadooyinka okay wuxuu ku yiri meeshan oo isticmaal HTML style attribute isticmaale maxaa loo isticmaalaa for inline styling marka nooc inline kala hada isticmaalaysid waxa isticmaalay stylekas attribute okay markan maxaa isticmaalay style element marka for maxaa isticmaalaysa internal CSS u fiirsaya markan waa style element waay yani asigaba element dhameystiran ah oo open tag uu leeyahay close tag uu leeyahay waa marka uu yahay internalka laakiin marka kale oo inline ka uu yahay
dabcan iyada style un baad qoraysaa labada dhibcood aad ku xijinay quotationka aad ku xijinaysaa property aad gelinay value-ga aad sii gelinay qaabkaasay ahayd laakiin tan ayadaaba element ah open tag iyo close tag ay leedahay kadibna qaabka u qoraysan waan soo aragnay internalka so link attribute link marka element asigana waxa u isticmaalaysaa lagu yiri inaad ku tixraacdid external CSS file oo banaanka ah kan externalka u isticmaala link so marka saddexdan waa muhiim inaad si gaar ah u kala fahamtid kan kor style kaligeed oo qaaban oo aan lahayn calaamadan less than iyo maaragtay greater than aan lahayn waxaad u isticmaalaysaa inline-ka midan elementiga ah attribute-ki maahan marka tan elementiga ah waxaad u isticmaalaysaa oo waxaan leh internal CSS u isticmaalay so inline internal so external kan waxa u isticmaalaysaa link so blank waa kan marka kiga ku xiriirinaysa so head waan naqaanaa marka head element to store waxa lagu keediyaa loo isticmaalo in lagu keediyo style iyo link element so styleki kadibna linkiga styleki soo dhaxgalay waana section head section meesha la dhahay waa color property waxa loo isticmaalaa for text color iyada waan soo aragnay waxaas naguma cusbo laakiin ku noqoshaan inoogu timid waa mar aan dul mareena font family waxa loo isticmaalaa in farta lagu bedelo font size waxa lagu bedelaa loo isticmaalaa property-ga la dhaho in lagu bedelo cabirka farta border waxa loo isticmaalaa in xuduudo lagu kala sameeyo padding waxa loo isticmaalaa in space lagu kala sameeyo inside the border marka borderka dhexdiisa waa farta iyo xuduudda wareega dhexdeeda marka inside the border kan margin waa opposite waa marka of padding ayuu ka soo horjeedaa waxa waa asigana property oo CSS leedahay loona isticmaalo in space lagu suubiyo outside the border marka kanne kii hor muxuu ahaa padding inside the border kanne outside the border waa markasta sababta aan u dhahaa waa farqiga la fiiri meesha shayga ku kala duwan yihiin ayaad fiirinaysaa laba maxamed haddaad taqaanid oo magac isku mid ku yihiin waxa waaye muuqaalka inay kala duwan yihiin haddii muuqaalka isaga eg yihiin dhirarka iyo balaca waxa shayga ku kala duwan yihiin baa markaas fiirino farqiga haddaad ogaatid wixii ku jiro ka dambeyn waa ogaanaysaa so gabagabo okay waxaa lagu yiri CSS cashirkaasaas dhammaystiran looga baran karaa laakiin waa cashir xiga waa kaas koorso dhan oo xigto koorsada markii HTML laga baxaa waaye hadalka data idin dhahay waaye so way dheeraata cashirka ugu dheeraada waan dareemi karaa laakiin wax kasto in qiimo loo bixiyo oo waqti loo bixiyo wax walba waqtiga ugu qaalisan dabcan wixii lagu bixiyana kasii qaalisan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته